quraanku waa dawo lagula tacaali karo wax walba iyagoo arintaasi ka duulaya ayay dhalintani qabsadeen kulan quraan aqrisa ujeedkoodu waa inay dalka iyo dadka uga duceeyaan coronavirus oo ah dilaac cusub oo dunida ku soo kordhay waa halka kaliya ee ay u arkaan in caalamku uu uga hortagi karo hargabkan safmarka gaar ahaan Soomaalida maanta oo ah maalmo jimco ah dhammaan xubnaha kala duwan ee ururka Garaadmaal iyo dhalinyarta kale oo kamid qayb kale oo kamid ah dhalinyarta degmada Dharkeenley ayaa waxay iskugu yimaadeen kulan quraan akhris ah kulankaas oo ujeedadiisu ugu weyn ay tahay maadaama ayaantan warbaahinta caalamiga iyo midda gudahaba ay qabsaday cudurkan la yiraahdo coronavirus oo adduunka oo dhan laga qeyliyay maxay ahayd cudurkaas oo ay u tabarwaayeen wadamada waaweynaa caalamka oo ay Shiinaha iyo wadamo kale ay kamid yihiin Shiinaha oo kasoo bilowday iyo kuwa kale oo hadda soo gaarayba maadaama ay u tabarwaayeen oo ayaga iyo kuwa kale oo hadda ku soo wajahan yahay ama ka cabsi qaba inay wadamada soo gaaraan waxay bilaabeen aragtiyo iyo dhaqamo kala duwan oo ay rabaan inay uga hortagaan cudurkaas sidaas daraadeed maadaama annaga Soomaali hadaan nahay dad muslim ah 100% oo aaminsan in quraanku wax walba daawo u yahay sababtoo Ilaahay wuxuu leeyahay wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara annagoo aayadaas ka tusaale qaadanayna iyo quraanka ayaa waxaan iskugu nimid in aan quraan akhrino oo ujeedadiisu ay tahay in musiibada si guud oo caalamka uga qaado si gaar ahna bulshada Soomaaliyeed inuusan Ilaahay soo gaarsiinin ujeedadeena ugu weyn taasay ahayd cudurka corona oo markii ugu horeeyay ka dilaacay dalweynaha China ayaa waxa uu isku ballaariyay dalal badan oo caalamka ah waxaana sii kordhaysa tirada uu dilay iyo midda uu asiibayo Ilaahay barida aan barin Ilaahay naga aqbalo hadii dib u yimaado dadka muslimiinta sida meesha ay aadaan la rabo kalaamka Ilaahay baridiisa ee salaam barinay Ilaahay aqbalka iskala Ilaahay xamalka nama soo gaarsiin islaamku waa in Ilaahay kulankoodii ugu horeeyay ayay dhalinyaradan maanta oo jimco ah ku yeesheen degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho waxayna doonayaan in ay intan ka sii badiyaan kulamadan qayrka badan oo kale waxay ku baaqayaan in aan la dhayalsan fariinta ay dirayaan maadaama halista cudurkani ay dunida oo dhan ku sii kordhayso in maadaama annagana ay dad dhalinyaro ah degmada Dharkeenley ku nool ay jiraan dhalinyaro kale Soomaaliyeed oo wadanka dacaladiis ku nool ayagana waxa u direen aragti ah inay badiyaan kulamada noocan oo kale oo ay nagu daydaan oo si guud Ilaahay loo bariyo wadanka Soomaalida oo dhan dhammaan gobolada dalka China oo ah dal caan ku ah in uu dunida oo dhan u dhoofiyo wax soo saarkiisa ayaa haatan la tacaalaya hargabkaasi ay la hindhisayaan qaar ka mid ah muwaadiniintiisa waxaana laga cabsi qabaa hadaan xal loo helin in ay la qunfacaan dad badan oo caalamka ah Soomaaliya waxa ay ka mid tahay dalalka cilaaqaadka ganacsiga la China waxaana ganacsada Soomaaliyeed ay dalkaasi ka keenaan waxyaabo badan dawladda Soomaaliya ayaa dadaal badan ku bixinaysa ka hortagida caabuqaasi iyadoo aad loo yareeyay socdaalka dalalka kiisaskaasi laga helay sidoo kalena taxaddar iyo feejignaan badan laga dareemayo garoonada diyaaradaha dalka Maxamuud Soofaysane Television Universal Muqdisho